waxaa lagu jiraa xilli roobaadkii guga roobab mahiigaana ayaa maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay magaalada Hargeysa roobabkaasi ayaa waxay geysteen waxyeello u badan khasaare maaliyadeed wadooyin muhiim ah oo ku yaala caasimadda ayaa weli xidhan kuwaas oo daadadku ay gooyeen xaafadahan oo ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa ayaa guryahoodii biyuhu buux dhaafiyeen kadib markii ay xidhmeen wadooyinkii hormarayay waxay sheegeen in ilaa iyo hadda dawladda hoose aanay waxba u qabanin waxa ka waramaya laagtinimka gooday iyo biyaha nimka waxaan ku ka yimid dooxii biyaha waxaan ku mari jiray iyadoo uu ku xaqul gaarsiiyay 25 xaafado khasaare u gaarsiiyay khasaaraha soo markaa waxaan ku ka dhalanaya dooxan biyo mareen buu waxaan ku rahan jiray biyo mareenkiisii markaa waxa sababay in dooxii wax kala daboolay oo markaa halkii biyaha loogu talagalay ay wax ku daboolantay kadibna waxa ku biyo waxa soo jeedaan 25 xaafadood ilaa ay laga soo bilaabo مساجك إن حصل كوب وحي أيجاركيس أهودن في مركب مال مركب ويان إن صوت شلون برتنا حكون مركب شلون برتن واللي بخاطرنا واللي بنغطيني إلا أيجارك الدكان كيجن إلا يجري أنا قد بيرد بنودات كل سوق هذا خسارة أنت اللي بتجارسي خسارة واحد روح جارسين جريه فربنا الله الدكان كي بيو حاجة طبيعي كسوق جلان جريه هيجي هو كوي دكانيد أو يقول حكون حاجة طبيعي كسوق جلان بيوه أنت صار بحك روح جوين إلا حتى شنطة جريه يران ولا نهاي جريه حاجة طبيعي بيو حكون كبوحان بدون الصوت تركه وحنو شيءنا إنه حكون بحيي وسوق هالكاس أو خسارتها أنت حكون جارسية وسوق كده بيو حصل بحيي هذا ما دول خلا حلو دول كانوا حكون الحلو لا دول حلو حكون الدبلة تصير بحكون كور هي بقى إنك عروتي دي سد حوالي مو يقولي يا ابتياش وضع برك هي برك الله حافظ يشوفه مركب واحد هنا سامين وين بنقول شيء واحد لنا دتك المسؤولين تا وصل الله يعني وحنا لا أركان وحنا بقى يا هذا بين شيء اللي هذا لو شيء نبأ أنا لا أركان لبت الناس تو قريق الله تناد أنا هم قريق الله تناد وحلو ترى الله 5 كيلومتر هلكا أما أنت إمك تايناي 5 كيلومتر بنشرة وأنا بيجي لا يفلي قريقي الآن بيفلي عن بابي اللي جحاله كنت وصل علينا كاله نارك يا وحنا قبل السنة كله كاله دي كان ماشي بيه نارك ده لبت الناس تا مدعونا بالكالة تقانات مشابه لريد بالكالة نلاك تاريخ فرنسا صار راعو كالة عرق سوق الدمر تعذيب بلا إلهه سومر المعد جامعة تودي ويروى المسيرارة كالة نلاك hooyadan oo hore dib uga soo gaadhay roobabkii habeenadii la soo dhaafay daay ayaa hadda waxay ka warwarsan tahay in roob daba yimaado iyadoo wadada hormarta ay wili xiran tahay taasoo sababtay in gurigeeda biyuhu ay buux dhaafiyaan ina warwar dambe ayaan haysta ma seexan karno habeenkii xalay maanaan seexan habeen hore maanaan seexan waayo waxaanu ka warwarinaa inay dhibaatadii oo kale nagu dhacdo markii iftiin bay ahayd waana lala guray laakiin isagoo oo hurdo haduu saar noogu soo gala daadku ma awoodno inaanu ka baxno dhibta taagan mas'uuliyadeeda marka laga tago dawladda hoose iyaduna waxa gacan ku leh qayb ka mid ah bulshada kuwaasoo qashinka soo raaciya biyaha marka roobku da'ayo dadku qayb bay ka yihiin waxay qayb uga yihiin qashinkan xagu ka yihiin marka hore qashinkan hadda xilli roobaadka hadaynu eegno xilli roobaadka ama wadooyinka aad marto waxaad arkaysaa xaafad kasta marka roobku da'ayo ay qashinka ku soo qubaysaa wadada qashinkii wadada lagu soo qubay xaafadaha ayaa imanaya centerkii magaalada dadna wadooyinkii buu xidhaya wadooyinka markuu xidho hadii laga cawdo la yiraahdo dawladda waa soo kaliya laga cawdo qaybta ugu weyn waxa weeye dadkii waayo dadkii roobkii waxay la sugeen inuu noqdo wax ka qaada qashinkii biyaha qashin kale ee dhex jiifa qayb ka mid ah Hargeysa ayaa waxay sababi karaan xanuunada dilaaca sida uu sheegay Dr. Khalid Ali Balayax weyn ogno magaaladeena waxyaabaha dhibta ugu badan haysta waxa weeyaan inayna lahayn drainage ama meel biyo si fiican u maraan biyihii baa fadhiisanaya qashinkii wixii ayaa isku wada dul hooraya taasna waxay keenaysaa in dadkii ay uga yimaadaan cudurradaas waxa kamid ah markaa waxa lagu arkaa inta badan dadka in ciyaalka yaryar oo kale ay ku dhacdo xundurta waxaan naqaano kale taas oo ka dhalata maxay biyaha wasakhaysan waxa kale oo imika ku dhasha dadka typhoid fever kaas oo ka yimaada iyaguna biyaha wasakhaysan ta kale waxa weeyaan waxyaabahan kale gooryaanada ama cayayaankan ku nool maxay caloosheena taasina waxay keenaysaa in ay ku keento ciyaalka yaryar ama dadkii waaweynaa oo la yiraahdo dadka maxay immunocompromised ama dadka difaacoodu yar yahay sida dadka waaweyn dumarka uur kale iyo ciyaalka yar inay ku keento cudurro halis ah oo dhiman karaan mas'uuliyiinta dawladda hoose aan isku daynay in dhibaatada taagan aan wax ka weydiino ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan xasan Suleymaan Haruun Xasan Galayd telefishinka Home Cable magaalada Hargeysa